بروفيسور علي خليف كلر oo madal kaga hadlayay doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda magaalada Burco ayaa su'aalihii la weydiiyay tii ugu xisaab badneed ee bulshada ka qayb gashay sida weyn u soo jiidatay ayaa ahayd waxa noo sheegtay in aad iminka ku gudi jirto ama aad tabliiq ka tahay Soomaaliland danteeda iyo maxay tahay sida ay wax jiraan waxaad soo noqotay ra'iisul wasaare waxaad u tartantay madaxweyne ugu dambeyn waxaad masiirkeeda soo hogaamisay ummadan adigoo si siman Soomaaliland ula gurgurtamayay xasaba iminka inaad tabliiq ka noqoto aad marba magaalo muxaadaro ku qabato sidee baad se maxay tahay wada hadallo aan ka jeedin karin baran iyo ku hoole oo dhici karta ummad se aad hogaamiye sidee baad aragtidan ummadda hogaamiye oo aragtidan aan kula qabin sidee bay u dhici kartaa inaad matasho iyagoo aan aaminsanayn waxaad ka hadlayso بروفيسور علي خليف كلر ayaa isna su'aashaasi si bulshada soo jiidatay uga jawaabay anigu jabhad baan ahaa dhowr sano waxaana i baday inaan jabhad noqdo laano Somaliland iyo Puntland iyo xamar baa diiday midna inuu arrimaha iyagii dhagu jalqiyo saaxiibkay Siilaanyo iyo maamulkii markaa joogay waxay u arkeen inay dantoodu Somaliland ku jirto inay nala hadlaan waana qabaa annakum macruuf gaar ay naloo siiya hadiyad marnaba ma nafilay hadii xamdi aad leedahay baran maxaad u tagi weydeen iyo buuhoodle te horta bal baran iyo buuhoodle waxay qabaan waaba noo cadahay bal Burco iyo Hargeysa iyo Berbera boorama qudhadeedu waaba noo yara cadahay waroy siyaasadeeni waxay noqotay qofkii isagaan warkaad sheegaysaba wada maqal inuu geesayeesho warbal markaa inaan isku dayno siyaare wax lagu kasbado waqti gelin aanan ku tala gelin mana rabin runtii intan oo waqtiya cali ahaan inaan ugu wasii jiro laakiin dani waa seeto baranna waanu tagi buuhoodlana waanu tagi booramana waanu tagi baadan ka wadaynaa Burcana waaba kan Berberana waa tagi doonaa ka tabliiq siyaasi wuxuu noqday a secret weapon ama hubs siyaasadeed oo aan rabno dadka inaanu ku qancino oo aan khalad laga fahmin laakiin waxaan isleeyahay haddaan fariin idin ka tagi karo anigu cali ahaan mansab aan Somaliland iyo anywhere in Somalia in the world ka rabaa ma jiro dhaqaale aan ka rabaa ma jiro laakiin waxa ii muuqata Somaliland iyo leadership kan maanta jooga Somaliland haddayan ka fiirsan arrimaha gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn qaarkeeda iyo Boorame darafyada haddaan laga fiirsan war waxaynu xamar nidhaaho waa ula doodaynaa oo laynaga dhagaysanayaa ma jirto waana la laayay Soomaa war Somaliland waana laysay qabaa'il iyakoo ciidamayna laayeen oo hubkii Somaliland magaalooyinka ay ku soo galeen war annakaanba ku haysan maxaad noo layseen annakaa rabna Somaliland dantayada ka aragna meel kale aanu ku dooranaynaana ma jirto haddiise ay dheg u jalqin waayaan xitaa anigu haddaanba iska dhoofo oo iska tacabiro af Ingiriisiga waxaa la yidhaahaa fikir ama ra'yi waqtigii sii yimi wax is hortaagi karaa ma jiro waa ogahay fulaxantii ma mooga cidda odhanaysa oo Cali Khaliif horta yuu wataa dhulbahantaba lama socdee war waa been war fikirka dadkaasu rabaan waxa weeye Somaliland iyo Sheikh Saab marti uma noqonayno ama waxbaan wada yeelanaynaa ama waxba ismayno waa Cabdirasaaq Koronto iyo Maxamed Xiirey telefishinka caalamiga ee Saab magaalada Burco.